Juxa cunugiisa iyo dameerkiisa. Maalin maalmaha ka mida, Juxa iyo wiilkiisa waxa ay ahaayeen kuwo u socda suuqa iyaga iyo dameerkooda. Waxa arkay dad wadada marayay, doqonnimada Juxa iyo wiilkiisa haysato, maxaa yeelay labadoodiba waxa ay socdeen dhulka. Waxa ay dhaheen tani waa tu qariib ah, fiiriya ninkan isaga iyo cunugiisa waxa ay socdaan dhulka mana fuulayaan dameerkooda. Juxa waxa uu dhibsaday hadaladii ay dadka lahaayeen. Intaas kadib cunugiisa ayuu ka dalbaday inuu fuulo dameerka, wuuna fuulay dameerka. Waxa ayna sii wateen socodkooda. Waqti kadib waxa ay soo mareen naag duqa oo fadhido wadada geeskeeda. Naagtii waxa ay tiri, wiilkan waa wiil xun, aabihii ayaa dhulka socdo, isagana waxa uu saaran yahay dameerka, mana garanayo xaq ay leeyihiin waalidka. Kadib markii uu maqlay Juxa hadalkii duqda, waxa uu cunuga ka dejiyay dameerka, waa uuna fuulay. Waxa uuna go'aansaday in uu fuulo dameerka, cunugiisana uu socdo, dameerkana jaraha uu u hayo. Kadib ayaga oo marayo wadadoodii waxa ka hor yimid laba naagood oo wadada marayo. Labadii naagood waxa ay fiiriyeen Juxa waxa ayna dhaheen, alle muxuu yahay aabba daalim ah, fiiri cunugiisii waxa uu socdaa dhulka weliba isagoo daalan, isagana waxa uu saaran yahay dameerka. Kadib Juxa wuu ka degay dameerka, waxa uuna go'aansaday in ay wada fuulaan dameerka isaga iyo cunugiisa iyagoo wadada socda, labadoodiina ay saaran yihiin dameerka. Waxa soo maray laba nin, waxa ayna dhaheen, alla maxaa ay yihiin laba qof oo qalbi adag. Waxa ay fuulan yihiin dameerka, mana siinayaan waqti uu ku raaxaysto dameerkooda. Juxa iyo wiilkiisii waxa ay fiiriyeen dameerkoodii, waxa ayna dhaheen, waxa noo muuqato in uu dameerkanagi daalan yahay. Dhab ahaantii maxaan sameynaa? Waa in aan xambaarnaa dameerkanaga si uu u raaxaysto. Juxa iyo wiilkiisii waxa ay xambaareen dameerkoodii, waxa ayna saareen garbahoodii, waxa ayna sii wateen socodkoodii. Kadib wax yar waxa ay soo mareen dad taagan wadada. Markii ay arkeen Juxa iyo wiilkiisii oo xambaarsan dameerkii, waa ay qosleen, waxa ayna u maleeyeen in ay waalan yihiin. Dadkii waxa ay u qosleen si xoog ah oo weliba sareyso, ilaa uu dameerkii ka cabsaday qosolkii iyo qaylidii dadkii. Dameerkii waa uu argagaxay, waxa uuna isku tuuray si xoog ah, waxa uuna ku dhacay webi. Dameerkii waa uu dhintay maxaa yeelay meesha waxa ay ahayd meel mool ah. Waxa ay u soo laabteen Juxa iyo cunugiisii gurigoodii, ayagoo ku soo socday wadadii gurigoodii aadaysay. Waxa uu Juxa cunugiisii ku yiri, wiilkaygiiow, wax walba oo samayso ma awoodeysid in aad qaniciso dadka oo dhan.